gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Soomaaliya Cabdicasiis Siciid Saalax oo waraysi gaar ah siiyay telefishinka Home Cable ayaa waxa uu ka hadlay saamiga madaxweynaha cusub ee Somaliland uu golihiisa wasiirada kaga soo daray dhalinyarada Somaliland. marka koowaad aan ku hambaleyna golihiisa cusub iyo xukuumadda cusub ee uu magacaabay waxaan u rajaynayaa in Ilaahay u fududeeyo xilka loo magacaabay dadka cusub iyo isagaba guushooda waa guusha qaranka xukuumadda guuldaradana waa guuldarada qaranka marka mar walba inaan guul u rajayno ayaa waajib oo muwaadin ahaan iska taagno madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhalinyaro tax badan bay gelisay way la shaqeysay way u codeysay waxay ka shaqeynaysay goob kasta oo doorasho marka run ahaantii inuu tiro ilaa 5 wasiir waa daahan dad dhalinyarada aan hore loo qabsanin xil wasiir qabtaan ee uu magacaabay ku dhiiraday oo mahad celinayna waan ugu hambalyeynaa oo go'aan ku dhiiraday weeyaan waa wax loo baahan yahay dhalinyarada in la aamino dhalinyarada Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay inteeda wanaagsan ee wax bartay ee qarankan wax u qaban karta in la aamino la tijaabiyo xil culus loo dhiibo runtii way mudan yihiin gudoomiyaha dalada dhalinyarada Somaliland ee Soomaaliya Cabdicasiis Siciid Saalax ayaan weydiiyay bal inay muuqato dhaliil kala duwan oo inta badan loo soo jeediyo dhalinyarada xilalka ka qabtay golayaasha deegaanka ee magaalooyinka Somaliland iyo waliba xukuumadda dabcan waa runta xasan oo way ka muuqataayo dhalinyaradu waxa weeyaan isku wada jirto waa bulsho ballaaran waa majority Somaliland dhalinyaraduna isku wada jirtaa inay soo galaan oo cagaha soo galiyaan marka hore adkay iminkana waxa bilaabantay in wajhi kale ay muuqato dhalinyarada tababarkii loo baahnaa iyo tayadii loo baahnaa inaanay iyagoo aan qabin inay fursadan heleen marka iminka waxaan badanaa markaan dhalinyarada recommend gareynayno iskama dhahan dhalinyarada oo xal siiyo laakiin dhalinyarada mudan wax baratay hore loo soo tijaabiyay ee magaranaysa hufnaanta u saaxiiba maamul wanaagga u saaxiiba aqoontoodii iyo systemka wax ku soo barteen iyo waxa soo dhanna u saxan yahay horumar la timi naftoodii ku filnaatay qaranka marka wax u qaban karta in la horeysiyo mudnaanta kala siiyo ayaa mudane maaha qof kasto da'yar in la yiraahdo waa dhalinyaro xil baa la siiyay Xasan Galadon Cable TV Hargeysa.